بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال وأنا السلام ولاشين آمن لك وفشيال سلام كدي ولا ليال محربا ما تنا كيرا هالله وحربا كيرا هالله إن ويل دول من لجوها يو أن إنترنت كوكو أركي وأنا كأم سكر وايرنتي وحيابها لجو سمينا يو ويل كاس إن جبر ولاشين أو يدا لفتر كده مركي هلا الدلمي أو دلمي كعبنا يسيبا دلميسا يدي با وحسيد دلميسا هدا واسكتور تور أرهنتا gabadhan waa wada taqaanaa waa gabadha la yiraahdo Easter Kurliba hadda ka hor video waan soo duubay aan ugu heelinayo shalay hadan iyada u heelinay maanta wiilka ay dulmaysan u heelinaya wiilka ay dulmaysan waxa la yiraahdaa Khadar baa la yiraahdaa Khadar inkastoo markii hore aan videoga laftirkiisa kii hore aan ku iri maxaa dhalinyarada ugu soo xareysanaysa runtii cajiib igu noqotay hooyo ilma haysata oo dhalinyarada iska soo xareysanaysa haddana saas ay tahay wiilkaas aliis wuxuu ahaa ninka kaliya ahaa ee caawin jiray ee garabkeeda ahaa markii ay duruufta haysatay Easter Kurliba wiilkii duruufta la arkay la soo maray dhibaatada la arkay la soo maray iyo dulmiga ay maanta ku sameynayso waa isku kii geli waayeen arrintaas waa laba arrimood oo isku ka imaan waayeen gabadhaas Soomaaliyeed Easter Kurliba la yiraahdo khalad bay ku jirtaa haddaan khaladka ayna iska qabanina meel xun bay ku sii socotaa maanta waxa internetka laga soo gelinayay waxa laga sheegay waad maqlaysaan inuu maanta dhalinyaradii guriga la joogay qaarkood intay soo galaan ay dhahaan iyadoo nin u sii dhuumanaysa guriga dhexdiisa nimantii guriga ka ijaartay ninka u dhuumanaysa u tuutuk ku kursanaysa baan arkay waa ceeb iyada soo gaaraysa ayada laftirkeedana waxyaabaha ay sameynaysa ay ubadkeeda yarka gelinaysa war hooyo hadaa tahay ubadkaaga inaad difaacdo weeyaan sideed u difaacaysaa ilmaha yarka haddaad maanta jidka dariiqa aad u dhigto joodari aad u dhigto iska seexanaya wuxuu ogeeyay ma jirto ilmaha yar qofkii difaaci lahaa loo baahnaa inuu darbi u noqdo ee difaacayay adiga weeyaan adiga haddaad u soo xareyso rag aad u soo xareyso guriga ugu soo xareyso dhalinyaro ugu soo xareyso meeshiina aad waliba gabdho ku haysato ama wiil iyo gabar maanta wiil iyo gabarba lama daayo wad ogsoontiin xaaladda soconaysa idinkoo xaaladaas og inaad ubadkiina yarka u soo gelisaan rag guriga ugu soo xareysaan oo dhalinyaro fara badan aad guriga ugu soo xareysay hadhowna aad tiraadaan ilmahayga xumaan loo daaray adaa keenay kulli fidna cinda geel adaa keenay hooyaa tahay ilmahaagii baad xumaan soo xareysay hooyaa tahay dhalinyaraad guriga u keentay hooyaa tahay ubad yar baad dhashay hooyaa tahay gabdhaha waliba ku jooga wixii la doonaa lagu sameyn karaa iska daa in video la daawashiyo wax walba laga dhamaysan karaa inta badan qof YouTuber ah tahay vlog baad samaysaa waad maqan tahay maba joogtid badanaa maadaama aad maqan tahay oo aad guriga joogina waxa ilmahaaga ku dhacay marka qaar lama socotid gabdhaha yar waxaan maqlayay 8 jir inuu wiilka ka dhawaajinayo magaca muxuu da'dooda ilma yar oo 8 jir inaad inta u soo xareyso hadhowna aad halkan ka soo cabaado aad tiraahdo ilmahayga xumaan loo daaray horta adiga keenay fidnada hooyana ma tihid hooyo dayacan baad tahay runta wax ku sheegaad laacda maalintii aad dulmaneed waan ku hiirinay laakiin maanta waxyaabaha ku soo socoto iyo jidka xun aad ku socoto iyo ubadkaaga khatarta aad gelinaysid kama aamusayno adigiiba ubadkaaga intaad khatar gelisid waxaad leedahay muxuu ahaa ilmahayga xumaan loo daaray adaan u soo xareeyay Nairobi baad timid qaxootigii baad ka timid duruuftii baa ilaahay ka soo saaray lagugu caayi maayo waa lagugu hiiliyay subscribe baa lagu saaray garabkaagii baa la noqday mar allaale markaad ka soo baxday Nairobi timid horta waa tii aad heesaha bilowday iyo isqaawinada waa tii aad bilowday inaad timaha qaawisid waa tii aad bilowday inaad meelaha ka neekiso iska badaa taas waa choice-kaaga cid kugu haysata ma adiga doortay Nairobi baad degtay Nairobi khasab kuma ahayna dad badan dhalinyaro badan guriga aad ka ijaartid waxaad tiri guriga aan ka ijaartay nin walba waxbuu la baxay khasab ma ahayna guri dhan oo intaas oo qol aad ijaaratid maadaama aad hooyo tahay hal qol oo aad darin saarato ayaa kaaga filan ubadkaaga aad ku badbaadsatid haddaad qol kireysan weydo laba qol xitaa haddaad ku tala gasho macnaha inaad wiilkaaga roon aad seexisid waa caqliga aan ku shaqayn lahaa kulli aniga haddaan muxuu adiga ahaan lahaa rag aad guriga ku soo xareysatay oo ilmahaaga ku badbaadinaya haba yaraatee ma jirto inaad maanta halka la soo istaagto tirada gabdhayga xumaan loo daaray adiga fidnada keensaday ada saqiirada yarka khatar geliyay adiga dhibka keenay inaad marba nin kala bedesho marba dhoocil yar aad marba mid wax kugu sheegana ceebta adaa isugu wacan gabaray adaa ceebta isugu wacan ninkan maskiinka maanta uu soo galay hiilkiisa inaan u heeliyo dhalinyarada soo xareystay maba ahayn inaad soo xareysatay khalad bay ahayd oo wax fiican ma ahayn laakiin maadaama aad soo xareysatay wiilkii kaliya ka caawinaya buu ahaa inuu nin muxuu maanta Nairobi ka baratay ciilka iga haya ninka maanta video soo duubay ee uu faanayo iyo wiilkii Khadar oo ooynaya markaan arkay wallahi waan adkeysan kari waay because dulmina laga ma aamusi karo inaad faanto faan la soo fariisto garba weynow inta jimka tagtay borderkii iyo barbarii ka dharagtay oo aad darbigaas la kaasiisay naagtu nin qurux badan ku mooday maskiinka yaraabay ka raacday waa waanu fahmayna aqli baan leenahay
waatan uu leeyahay iyadoo kuu soo dhuumanaysa inkastoo hadallada qaar aad mar walba iska aamini karin qofka wuxuu yiraahdo haddana qof gurigii jooga weeye waxyaabo badan baa lagula dagaalay wiilkan dagaal xoogan baad ku haysan adiga ninkaas aad israacdeen waxba ha raacin qaabka sare ha raacin dadnimada raac dadnimo boqolkiiba boqol khadar baa ka wanaagsan dadnimo wax qoloftay Soomaalidu dumarka Soomaaliyeed qaarkood hadda fiiriyaan six packs baa laga raacay dumarkeena Soomaaliyeed six packs halkan darbigan iyo beelahan oo la dhiso aqligan oo la dhisaa ka qurux badan tan oo dhisan baa ka qurux badan mid yar oo bar yar oo caato oo dhimanaya hadda aragto oo laakiin aqli badan oo maskaxdiisu buuxdo kaasa ku dhaqanaya darbi kuma dhaqanayo xun oo naanaabo nacso maskaxda aqligiisu waxba ku filnayn waa ninka intuu meesha u soo fariistay ay ula soo fariistay wiilkii ooynay raganimo ma aha ninka guriga ku xaleysatay weeyaan ninka hurdada kula fariisanaya weeyay istarka rulibaaxay anu waxaan garan waay gabdhihiina Soomaaliyeed ee qaarkiin haday doonaan dahabkii sanduuqyada ugu jira intay soo saaraan nadahaya muxuu ahaa umada tus ina dahab siinaysid ciidan waxay fahmayninha u sheeg naaga badan baan arkay YouTube-ka ku jiro caan ka ah oo dahabkii inta dukaanka tageen duhanka haddaan maanta intaan dukaan tago aan dahab isku soo saxeexo oo aan ka dhigo inaan ka gadanayo waan soo sawiri karaa videogaas waan samayn karaa aqli baa loo baahan yahay inaad samaysaan markaad wax qiimeynayso lagu qiimeynaya miisaanka waa lagu saaraya aqligaas waxa la idinka dhaadhicinaya sadkana la ii gaday dahabkana la ii gaday muxuu ahaa waxana la ii gaday waa la idinka dhaadhicinaya laakiin dukaankii lagama soo qaadin dahabkii qofkii oo xiran ma idin arkin waa inaad aqli isticmaashaan ummad islaama oo idinku xiran oo muxuu ahaa idin daawada ayaa maalmo been u sheegtaan leedikama xumo inaad dahab soo gadaan laakiin beenta aad ummadda u sheegaysaan iska daay dahabyada sanduuqyada ugu jira intaad soo bixisaan ba waxaad tiraadaan dahab baa la isii hadiyad baa la isii okay ninka hadiyada ku siisanaya miyuu ku qabaa ma ninkaagiiba ninka ku dhinac fadhiya sariirta hurdada ku dhinac fadhiya ee ku hagaranaysa ku salaamanaya ee isku ka dhajinaya ma ninkaagiiba xaq miya ku tahay diinta ku ogol aqli baa loo baahan yahay isticmaashaan ma ogtahay aqliga ma jiro uu dhinac fadhiya dahab uu siinaya oo ay leedahay dahab uu soo gaday Allahu yaclam keedii inuu yahay kaba soo qaad inuu gaday sababta uu gaday baa rabay inaan ogaado waayo muxuu kugu gaday ninna bilaash kuma bixiyo bariis saxan bariisa nin bilaash kuma bixiyo muxuu kugu gaday markaa wuxuu kugu gaday waxa la sheegayo adaa marka iskugu wacan inaad ilmahaagiina dhibaato gelisid khatar gelisid adigiina maanta lagu ceebaysta istray in halka inta lagu soo fadhiistira uu yiraahdo saqda dhexe waxaan arkay iyadoo qolka ninkii oo jiifa u kuursanaysa u dhuumanaysa adaa iskugu wacan wiilka yarka miskiinka ee habeen iyo maalinba ka ohinaysan iska daayay aad ku goobanaysaa iyo ninka intuu meesha u soo fadhiista dhahay oriyaan muxuu ahaa adaa san sameeyay ee faanka la soo fadhiistay falxumadii qolof taagan noqday ninka muhalla leeyahay muha ninka la leeyahay ee ay wadata Easter kurli wax Soomaaliya waxaan ka codsanayaa please subscribe kala noqda qofka markuu kibirkiisa waa la tusaa qofka markuu kibro qof walaalkiin hortiina ku dulminayo Soomaaliya idinka 10 bari kara idinka qofka bini aadmiga 10 bari kara idinka Soomaalida meesha ku jira wallahi anaga waxna xumeyn karna waxna sameyn karna markaad aragtaan qof dulmaya oo akhlaaq xumo ku socda ila idinka caawiyo subscribe u saaray ha u saarina marka aragtaan qof walaalkiisa muxuu ahaa u wanaagsan u saara ha u saarina dadkan xun ee ummadda Ilaahay xumeynaya wiilkan waa laga oohiyay khadar waa laga oohiyay dhibaata loo geystay khadar adigana ninba Ilaahay ka dhigay nin raga Ilaahay ka dhigay way ku soo kaxaysay yes Nairobi way ku keentay isdabar ha u ooyin mar dambe ha u ooyin YouTube samayso waan ku saarayna subscribe ka ballan baan kaaga qaaday inaan garabkaaga noqdo ballan baan kaaga qaaday waan ku taageerayaa mahana waan kala noqday aniga subscribe-kayga Easter kalama noqonayo wali caruur bay haysataa waa hooyo ubad haysata kulay muxuu ahaa inta ku caawin karo waan ku caawinaya laakiin waan kugu waaninayaa Easter inaad xumaanta ka baxdo dhayla jecel baan maqli jiray dhayla jecel caadi aad noqoto walaashay ha wax Allah waa la idulmayo adiga baa wax dulmaya hadda dhalinyarada iska soo xareysanaysa maalin mid baa inta soo xareysata muxuu mid kale ka oohinaysa khadar waa ninkii garabkaaga ahaa khadar waa ninkii maalintii buulka intuu kula joogay ku caawin jiray oo riwaayadaha kula dhigayay khadar waa dadkii ku soo caynayay muxuu ahaa telefoonka ku soo caynayay waan ka hadlay YouTube-kayga uu ku jira khadar waa ninkii ku taageerayay oo nimankaas ka cirinayay waa ninkii lagu lahaa wariyaa waa sixranta adna way ku sixratay ninkii qabana way sixratay waa ninkii intaas oo dhibaato ah ku soo maray maalintii Nairobi kula yimid inaad nin xun oo gym yar intuu aad laba bari is soo qurxiyay kaba qurux badna waa intuu Nairobi kaga soo horeeyay uu tagay gym-ka ayuu kaga qurxoon yahay kaba qurux badna qaab iyo dhirir iyo jism iyo wajiba kama qurux badna ninkana qurux badan kana akhlaaq wanaagsan khadar amaan siiya khadar Soomaaliya taageera Easter kurli baa way kibirtay Easter kurli baa xumaan bay wadaa Easter kurli baa dulmi bay ka cabanaysa iyadii baa dulmilay noqotay ina inta soo fariistay wiilka islaamid halka ka ceebayso tiraado ciyaalkaygu wax u daardaaray ciyaalka adaa u keenay hooya taa way ciyaalku ugu keentay xumaanta
maxaad ciyaalkaagu da hooyooyin badan baa taa samaynaya hooyooyin badan baa intii rag soo xareystaan le waa walaalkaa kula dhashay baan maanta ubadka deynayn hadduu doono mid ilaahay u naxariista mooyaane ubadkii maalin walba waa idinka ka oynaya waxbaa la xoogay baa leedihiin haddaad ogtiin in la xoogay maxaad imaha usoo xareysanaysaan walaalku muxuu jira ma walaal baa jira markaad nin intaad ka soo xareysato dhalinyaro dhan magaalada intaad soo xareysato jimco kasta cunto u karinaysay in maanta gabdhaha yaryar aad guriga uga tagaysay aad tidhaahid waxbaa loo daaray adaa ugu wacan gabdhaha yar kamaba umalayn inay bad qabaan ani ilaa hadda rag baa kula degan rag iska bixi hal qol darin ku seexo hal qol wiil baad leedahay roon qolka kala deji haddaad doonto 2 qol ijaaro waad awoodaa maanta intaasoo sanadood baad youtube lahayd 2 qolood Nairobi ka ijaarta waad leedahay rag ba inaad ku xidhnaatid ummad inaad group ku xidhnaatid maba ahaba dhalinyaradkan wallaahi billaahi tallahi dumarka Soomaaliyeed qaar badan baa khaldan inta ubadkooda xumaan u soo xareeyaan oo rag u soo xareeyaan ba hadda ooyinta la soo fariistaan ilmihi baa leeyahay xoogay adiga ilmaha xoogay adiga ilmahaaga badgeliyo waayo ilmahaaga meesha tiixisay buu leeyahay khatarta aad gelisay buu leeyahay adaa ilmahaaga khatar geliyo hooyada Soomaaliyeed hooyooyin badan oo Soomaaliyeed ilmahooda khatar gelinaya jira ragba inta soo xareystaa maalin walba waxay walaalka xagu jooga kii kula dhashay marka qaar ka cabanaysaa waxaad sheegaysaa marka qaar aaba ilmihiisa kufsaday baad ka sheekeynaysaa macadala waa nin banaanka aad ka soo kaxaysato ay waxba isku ahayn na ilaahay ka xishoodo ilmaha yarka khatarta aad gelinaysan joojiyo oo ilaahay ka xishoodo raggan habeen iyo maalin ba garabkiina jooga fadhiya iska daay oo ilaahay ka xishoodo nin aan ku qabino dahab ku siinay bilaash kuma siinay ilaahay ka baq umada ilaahay beenta u sheegi sabab ku siisanaya dahab kii ku qabay hadduu doono dahab ku siisanaynin nin aan ku qabisu dahab ku saacada loo baahan in la isticmaalo dukaamo beena inta tagtaan waan arkay naaga badan oo youtube ka caan ka ah oo aad garanaysaan oo le dahab baa ii kanaal ii gado dahabka haddaan maanta dukaanka tago waan isku soo saxiixi karaa inta isku soo saxiix inta sirta waan idin soo duubi karaa inta yar markaa idin soo duuba hadhowna muxuu ahaa dukaankii waxaan qaatay maba idin arkinba wixii oo aan xirnaa miyaad aragteen dahabkii shabkadii weynadan soo gatay oon xirnaa miyaad aragteen ilaa aad aragtaan dahab naagi looma gadinayaan iimaanka laydinka qaadin gabdho badan oo Soomaaliyeed ya cuqdad la gelinin iyo mid walba ninkeeda inta gadaal u fiirsay dhihin wallahi kan aniga waxba iima gado iimaanka laga qaadkan xunka waxba iima gado wal fiiri heblaayo waxa loo gaday heblaayo waxa soo dhaba loo gaday waxaas waa been Soomaaliyeed waxana arkaysaan waa been inta badan waa been dhalaalkan aad arkaysaan waa been 120 nal baa la isku daaraa naftiina iyo noloshiina ku qanacsanaada naftiina iyo noloshiina ku qanacsanaada ku qancaha ku qancina waxa internetka ka aragtaan ya idinka dhaadhicin aqliyadan iyo fikriyadan beenta yaa la idinka dhaadhicin naag wax loo gadaa ma jirto naag waliba markay nin xun soo xareysato xumaan baa lagu soo gudbinaya miiriyaha nin aan ku qabin inaad la fadhiisatay xaquma ah nin aan ku qabin muxuu ahaa inaad intaad qolkaaga waliba qolka hurdada waxaana ka dumar iyagoo la qabin rag la fadhiyaan oo qolka hurdada la fadhiyaan yaa u baneeyay waxaan arkay rag iyo dumar iyagoo la qabin ilaahay baan ku dhaartay nin umar badawa siisanayo way xanuunsantaa madaxa dawa loo saaro biyo loo saaro kushkumaan madaxa loo saaro kinin yar la siiyo oo miyu ku qaba markuu ku dhaqaaleysanayo yaa ilaahay yaqaan madana xad ku jira nahoy gabdho ilaahay ka xishooda istar kullu waxadan way qaldan tahay qadarna ha la caawiyo videoga sababtan u soo duubay waxaan arkay ninka muhalla leeyahay ee qadar la socda oo muxuu ahaa la socda istar kullu baa la socda oo qadar caynaya waanan ka xumaaday runaanti marra waaxid waa adkeyn kar waay walaa muddo youtube ma soo gelin aad ban waa adkeyn kar waay sidoo ninkaas u dhaqmayo bilaa calaykum qadar hala caawiyo qadar oo nin raga ilaahay ka dhigay samayso youtube anaga ku caawinayna garabkaaga anaga insha Allah biidnillah kariim wassalaamu calaykum raxmatullaahi wabarakaatuh istiraadna caruurta ka dhex saar nimanka u dhex jira salaamu calaykum